farmaajo khasaare intee leeg ayuu kala kulmay dagaalkii uu la galay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo oo ay laba bil ku qaadatay inuu soo xusho ra'iisul wasaare ayaa ugu dambeyn miiska soo saaray maxamed xuseen roble oo aysan dadku badi aqoon fiican u lahayn kuna aadan siyaasadda falcelinta dooqa farmaajo ee shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ayaa noqotay mid aan sidaa u buurayn sababo la xiriira in roble yahay shakhsi ku cusub siyaasadda aysan samaan iyo xumaan toona ka sheegi karin balse ay sugayaan sida uu noqdo marka uu shaqada galo roble oo bilowgii hore ee shaqadiisaba ku amba qaaday daacadnimo u dhaganuglaan madaxweynihii isaga soo xulay dardargelinta arrimaha doorashooyinka oo ay shirarka arrimahaasi looga hadlayay ka socdeen baydhabo xilligaasi ayaa u muuqday mid shaqadu ay ka go'an tahay shacabka iyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan farmaajaha muddaxileedkiisu dhamaaday ayaa dhaleecayn ku bilaabay roble dadweynaha iyo siyaasiyiintuba xilligaas waxay u arkayeen roble inuu yahay niman gudan karin shaqada loo igmaday una dhaganugul farmaajo muddo yar kadib kooxda farmaajo oo aragtay daacadnimadiisa iyo sida uu ugu dhaganugul yahay ayaa isku dayay inay ku qaadaan weerar tijaabo ah kaas oo ay roble uga doonayeen in doorashada uu boobo farmaajo iyo kooxdiisu sida ay doonayaan roble oo gudanaya mas'uuliyadiisa arkayana culayska saaran shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho ayaa qaatay go'aan ah in la fududeeyo isku socodka magaalada wuxuuna furay wadooyin badan oo xirnaa qadkii cagaarnaa ee wadada Maka al-Mukarrama iyo jidgooyooyinkii yaalay ayuu qaaday isaga oo geeyay wadada warshadaha kooxda farmaajo oo aragtay sida uu roble u adeegay markaasi ayaa isku dayay inay u hoosgeliyaan boob doorasho isla markaasna waxay u gudbiyeen warqad ay ku qoran yihiin liiska rag ay u doonayaan xildhibaan inay noqdaan balse taas ugu dambeyn waa uu ka biyadiiday roble muddo kadib waxa soo baxay kiiska Ikraan Tahliil Faarax kaas oo kiciyay dareenka dadka Soomaaliyeed niso oo laga sugayay sheegida halka Ikraan ay ku sugan tahay ama hadii ay geeriyootay cid dishay ayaa mar qura waxa ay soo saareen in kooxda ka dagaalanta Soomaaliya ay gabadhaasi dileen ra'iisul wasaare roble oo gudanaya waajibaadkiisa shaqo ayaa agaasimihii nisa ee xilligaasi Fahad Yaasin ku amray in uu keeno war rasmi ah oo ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil iyo halka ay ku dambayso isaga oo u qabtay muddo 48 saacadood ah kadib Fahad oo warqad soo saaray ayaa sheegay in xogta Ikraan Tahliil Faarax uu la wadaagi doono badasha amniga qaranka taas oo uu Fahad ugu muujiyay roble in uusan waxba ahayn roble ayaa shaqadii ka eriyay agaasimaha 5 sano ee la soo dhaafay isku arkayay inuu yahay qofka ugu awoodda badan siyaasadda Soomaaliya wuxuuna roble noqday mas'uulkii ugu horeeyay ee ku dhiirada in uu shaqada banaanka ka dhigo Fahad Yaasin roble iyo farmaajo ayaa mar kale qoorta isdaray ugu dambeyn maalmo la kala maqnaa heshiis ayaa la gaaray wuxuuna wasiirka arrimaha dibadda u magacaabay Cabdi Siciid oo ahaa la taliyaha amniga farmaajo taas oo ku muujinaysa in heshiisku roble daacad ka ahaa laakiin farmaajo oo dhagar ka lahaa heshiiskaas ayaa mar kale weerar ku qaaday ra'iisul wasaare roble iyada oo loo adeegsaday taliyihii ciidamada badda oo ra'iisul wasaaraha markaasi ku eedeeyay inuu dhul boobayo wixii intaasi ka dambeeyay roble waxa uu meel iska dhigay farmaajo isaga oo taa beddelkeedana doorashadii dardar geliyay oo ahayd tii isaga loo magacaabayba inuu dardar geliyo farmaajo wuxuu dagaalkaasi ku waayay saaxiibadiis Fahad ayaa laga eriyay shaqadii nisa wasiirkii amniga Xundubay ayaa si aan caadi ahayn shaqada looga eriyay isagana wuxuu lumiyay kalsoonidii shacabka kadib markii ay arkeen in uu Fahad u hoosaasinayo in aan maxkamad la geyn kiisaska loo haystana aan wax laga weydiinin taas oo barmadow ku noqotay farmaajo isaga oo taa beddelkeedana xil kale isagii u sii magacaabay si aan loola sii xisaabtamin wuxuu lumiyay saaxiibo badan oo uu islaha xildhibaana ka dhigo guddigii doorashada ayaana fahmay xukuumaddu inay tahay cidda kaliya ee laga amar qaadan karo shaqada doorashada taliyihii qaybta guud ee booliska ee waqtigaasi shaqada ku jiray General Saadaq John ayaa isaguna u soo wareegay dhankan kale isagoo afgambigii farmaajo iyo awaamiirtoodiiba diiday beesha caalamka oo ogaatay in farmaajo uusan doonin in dalka doorasho uu aado waxay kala laabteen kalsoonidii iyaga oo taa beddelkeedana mid buuxda siiyay ra'iisul wasaare roble oo ay u arkayeen inuu yahay qofka kaliya ee kala guurka doorasho la'aanta iyo xaaladaha kale ee waddanka uu ku jiro oo ka saari karo wuxuu roble dib u hagaajiyay xiriirka dawladaha kala ah Djibouti Kenya iyo Imaaraadka oo farmaajo danihiisa gaarka ah uu xiriirka ugu jaray isagoo adeegsanaya awoodda dawladnimada wuxuu farmaajo waayay xildhibaanadii reer waqooyiga kuwii banaadiriga iyo kuwii gado oo ay maanta ugu dambeysay doorashadooda lana soo gabagabeeyay waxaa fashil ku soo dhamaaday dagaalkii 2 sano socday oo uu ku doonayay in uu doorashada ku xoogo isla markaasna uu dalka u geliyo afgambi ama gacan military waxa uu suuragali waayay isku daygiisii uu ku doonayay farmaajaha muddaxileedkiisu dhamaaday in uu doorashada ku daahiyo xilli maanta oo ay ugu dambayso
dalku uu marayo in guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay doorasho aadaan oo ay guddoomiyaal doortaan. Farmaajo wuxuu hadda taagan yahay qoomamo iyo ka shalayn joogto ah dagaaladii uu la galay Roble, kuwaas oo uu ku waayay dhammaan riyooyinkiisii uu ka lahaa in uu soo saarto xildhibaano iyo in uu dalka geliyo doorasho isaga uu maamulo. taas beddelkeedana waxa uu lumiyay rajadiisii ugu dambeysay ee ahayd dib u doorashadiisa. bulshada Soomaaliyeed iyo saamilayda siyaasadda dalka ayaa maanta Roble u arka xaliyay dadka ka badbaadiyay afgambi iyo doorashadii ku daato, taas beddelkeedana dadajiyay waqtigii loogu talagalay inuu ku qabtay doorashada waddanka ka socota, waxaana ay u arkaan inuu yahay nin ku guuleystay shaqadii uu yimid. taas beddelkeedana Farmaajo iyo damaciisii banaanka dhigay, isaga oo taa beddelkeedana ka eriyay shaqada dhowr qofood oo Farmaajo si gaar ah ugu adeegayay. aragtidaada, ra'iisul wasaare Roble ma qabtay shaqadii loo igmaday?